waa maxay udxiyo? Udxiyadu waa neef la gowraco maalinta ciida Carafo oo Ilaahay loogu dhawaado, waana sunna mu'akkada ah. Culimada qaar ayaa qaba inay waajib tahay oo ay ku tahay qof walba oo awooda inuu neef qalo. Aayado badan ayaa tilmaamaya udxiyada iyo hadyiga la gowraco xajka. Quraanka Kariimka meelo badan ayaa uga soo aroortay hadyiga iyo udxiyada. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. sidoo kale Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. sidoo kale Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay: فصل لربك وانحر. shuruudaha u degsan neefka udxiyada ah. 1. waa inuu yahay neefka la gowracayo mid ka mid ah xoolaha nicmoolayda loo yaqaano sida ariga, lo'da iyo geela. waa inuu neefka gaaraa da'da loogu talagalay inay ku ansaxdo udxiyada. tusaale ahaan, neefka idaha ah wuxuu ku ansaxaa 6 bilood marka uu gaaro. neefka aricadka ahna wuxuu ku ansaxaa marka uu gaaro 1 sano oo dhammaystiran. neefka lo'da ahna waxay ku ansaxdaa markay gaarto 2 sano oo dhammaystiran, halka neefka geelana uu ku ansaxo 5 sano oo dhammaystiran. 3. waa inuu neefka yahay mid ceeb aan lahayn. ceebtaas waxay ka dhigaysaa mid aan loo ogolaynin inuu neefka loo qalo udxiyo ahaan. udxiyadu ma noqon karo neef jiran oo jiradiisuna muuqato. sidoo kale udxiyo ma noqon karo neef jiis ah oo jiisnimadiisuna ay muuqato. sidoo kale udxiyo ma noqon karo neef aad caato u ah oo aanan hilib lahayn. intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa shuruudaha laga rabo neefka udxiyada ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.